si markaan tagnay gudoomiyaha guddiga Olombikada adduunka oo naga soo ballan qaaday inuu intaasba la qalabeeyo oo hadda qalabkooda runtii oo saaran yahay markab oo dhawaan laga dejin doono magaalada Muqdisho iyadoo la siin doono xiriiradaas iyo gobolada iyo dugsiyada. wasiirka isboortiga Soomaaliya Salmaan Colaad Roble mar saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in uusan la socon ama laga soo xirin ciyaaraha gobolada oo ka dhici doona Puntland marka ma ciyaarahaas qabanqaabadooda waxaa la hadlay sida aan la socono maamulka Puntland marka wasiirka shaqadaas ma laha in laga hadlo sidee kula tahay gudoomiye wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga mudane Salmaan Colaad Roble runtii waa nin aad iyo aad isboorti u ah waa nin jecel isboortiga waa nin aan jeclayn kala qobqob iyo kala daadasho waa nin jecel had iyo jeer inuu wax toosiyo waa nin jecel runtii inuu ku tilaabsado inuu hormariyo inta uu joogo oo awoodda Ilaahay u siiyo inuu mataqaana toosiyo isboortiga Soomaaliyeed waana nin aan iskula shaqeyno si daacad ah waa nin dhalinyaro ah waa nin runtii wasiiradina soo maray waa nin nooga duwan guddiga Olombikada xiriir iska dhaafay guddiga Olombikada Soomaaliyeed tilaabta oo qaadayo inuu wasiirka la socodsiiyo waa wax waajib ah oo sharci ah oo nidaam ah waayo hadan kala dambeyn iyo is-ixtiraam oo san jirin wax imaan karaaba jirin anigana la ixtiraafi maayo hadan wasiirka ixtiraafi waayo kaniga hooseeyana haduu aniga ixtiraafi waayo la ixtiraafi ma kuwa ka hooseeya ixtiraafi maayaan marka hawl kasta ee isboorti ah ama guddi ha qabto Olombikada ama xiriir ha qabtee in wasiirka isboortiga u qaabishan in la socodsiiyo waa wax nidaam ah oo sharci ah waxaan rabnay inaan wasiir noo sheegto gudoomiye xiriirka aad la leedihiin ururada isboorti oo ka dhisan qurbaha ee Olombika ahaan horaan u sheegay qurbaha ururada ka jira isboortiga ah waa rag anaga naga soo farcamay waa rag aan soo wada shaqeynay nin aan soo wada shaqeynin guddiyada ma ku jiro waa rag aan ku kalsoonahay wada shaqeyna naga dhaxaysa wada tashi naga dhaxeeya waa jirtaa waxyaabo yar yar oo anaga naloo sheego oo laakiin sida hadda aan u sheegayo waxa la rabaa cadeyn inaad ka heysid inay jiraan waxayna tahay waxyaabaha ugu weyn ee hadda socdaalkayga ama socdaalka madaxda sare ee guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo ku marayo qaaradda Yurub qaarkood ayaan mataqaana rabnaa guddigaas inay meesha ka baxdo laakiin waxaan ku sheegayaa inay ururadaasi yihiin ururo badankooda guddiga Olombikada Soomaaliyeed la wada shaqeeyo aan anagana la shaqeyno aan iska warqabno oo aan wax dhibaato haba yaraatee aan jirin kana aan rabno inaan ku tirtirno waxyaabaha tafsiilka ama mataqaana waxyaabaha fadhi ku dirarka ay sheegayaan inaan ku tirtirno markii aan socdaalkan dhameysnana waxaa la arki doonaa dad midaysan oo isjecel oo waayo doonada isla wada saaranahay isboorti Soomaaliyeed iska wax qabso ayaa lagu wadaa kan dibadda joogo kan gudaha joogo marka sidaas socodkeena ayaa waxa ahba inaanu ku daaweyno amba aan isku afgaranno inaanu nahay dad hal doon isla saaran doontu inaysan maartay naga qalibmin inaanu toosino ayaan taqaana socdaalkeena taasaaba ka mid ah